mudanayaasha golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa uu hogaaminayo maayirka degmada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa dacwad ka gudbiyay maxkamadda sare ee Somaliland taasoo ay kaga dalbanayaan in maxkamaddu ay faahfaahin dheeraad ah ka bixiso isla markaana ay sheegto sababaha iyo arrinta keentay in la xidho xildhibaan Jamaal oo ka tirsan golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa kaasi oo muddo 4 cisho ku xidhnaa magaalada Hargeysa kadib markii dhowaan ay cuqaasha iyo salaadiinta beesha Subeer Awal ku baaqeen inay shir isugu iman doonaan garoonka Xawaadle. Arrintaasi oo lala xiriirinayo in lagu xidhay xildhibaanka ayaa muddo 4 cisho waxa ku xidhnaa isla magaalada Hargeysa. Golaha oo si wada jir u tagay maxkamadda sare ee Somaliland ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare kulan la qaatay iyagoo halkaasi uga gudbiyay dacwad ka dhan ah oo ay kaga cabanayaan tacadiga ku dhacay xildhibaankan iyo sidoo kale in la ilaaliyo xasaanadda mudanayaasha golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa. Arrintan ayaa noqonaysa markii ugu horeysay ee golo ka tirsan golaha deegaanka golayaasha deegaanka uu gudbiyo dacwad ka dhan ah arrimaha lagu xidho xildhibaanada iyadoo markii ugu horeysay ay noqonayso intii ay Somaliland jirtay.